kusoo dhawow isku xirka wararka ee main waa wararkii ka baxay idaacadda raadiyaha main public kuwaasoo isbuuc walba ku baxa afafka kala duwan ee kala ah isbaanishka faransiiska afka bortuqiiska soomaaliga iyo sidoo kale afka ingiriiska bismillaahi raxmaani raxiim ramadaanu kariim kusoo dhowaada waa barnaamijkii isku xirka main public haddaba maanta waa bisha maarso 24keeda anigoo cabdiiftin ee barnaamijkan idinla sii socodsiinaya qodobada ugu waaweyn barnaamijkani maanta aan idinku soo gudbinayana waxaa ka mid ah haddaba kooxda u dooda xuquuqda dadka soo galootiga ee saldhigeedu uu yahay gobolkan Maine ayaa horraantii bishani ayagu dadka magangelya doonka ahi u furay xarun ay ayagu si degdeg ah ay weliba ku degaan weliba waa qaybta jimicsiga ama loo yaqaano gymka ee ku taalo waa isla magaaladani Portland isla mar ahaantaana xaruntaasi waa ay buuxsantay haddaba sidoo kale in ka badan waxaa la soo sheegayaa sidoo kale in ka badan dad ayagu tiradooda ay gaarayso 70 qof ayaa weliba jooga goobtani una badan qoysas ayagu wata caruur iyo sidoo kale u badan hooyooyin oona ka yimid labada dal ee kala ah Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo sidoo kale waa dalkaasi Angola haddaba inta badan qoysaskani ayaa sheegay inay ayagu ka soo qaxeen qalalaasaha ka jira dalalkooda weliba ay u soo doonteen halkani inay ku helaan nabadgelyo iyo sidoo kale deegaan iyo guryo ayagu ay ku nastaan iyo sidoo kale inay qoysaskooda ku horumariyaan haddaba in ka badan 780 dadka magangelya doonka ahi ayaa yimid waa isla magaaladani Portland isla sanadkani gudihiisa saraakiisha magaaladani Portland ayaa ayagu ka codsanaya dawladda hoose inay weliba garab ka siiso u raadinta dadkani guryo ay iyagu sii degaan qodobka kale isla mar ahaantaana Portland ayaa weliba ka fikiraysa qorshe lagu dhisayo ilaa 800 oo guri oo weliba ku yaalo aaga loo yaqaano Bayside haddaba ilaa 201 ka mid ah guryahani ayaa noqon doona ayaa leeyahay kuwa raqiis ah inta kalena waxay ku sicir noqon doonaan guryaha caadiga ah ee magaalada ayagu ka jira haddaba sidoo kale dadka arrinkani guryaha wada ayaa qorsheynaya xarun ganacsi oo gaaraysa ilaa 28,000 oo balac wareeg ah oo lagu talagalay in ay weliba ku jiri doonaan maqaaxiyo dukaamo iyo sidoo kale goobo kale oo dalxiis ah shakhsiga loo yaqaano Charles Mugabe oo asagu la shaqeeya kaniisadda Katoliga ayaa sheegay inuu taageerayo mashruucani sababtoo ah ayuu yiri guryo badan ayaa loo baahan yahay wuxuuna rajaynayaa sidoo kale inay qolada dhismaha ay la shaqeyn doonaan xarunta dadka magangelya doonka ahi ay iminka degan yihiin si loo qafiifiyo culeysyada waaweyn ee iminka jira qodobka kale hoggaanka qabaa'ilada Maine ayaa isbuucii hore la hadlay sharci dejinta isla gobolkani Maine markii ugu horeysay in ka badan 20 sano kadib markii hogaamiyaashani ay soo hor istaageen madaxda gobolkani Maine haddaba hogaamiyaasha ayaa sheegay in gobolku ay tahay inuu aqoonsado karaamada qabiilada Indida ah ee Maine sidoo kale madaxdani ayaa sheegay in sharciga gobolka iminka ka jira uu caqabad weyn ku yahay madax banaanida qabaa'iladani daraasadda dhawaan ay samaysay jaamacadda Harvard ayaa ayadu sheegtay in dhaqaalaha qabiiladani ama qabiilada dhammaan dalka uu 60% sare u kacay laakiin midda Maine ay kaliya tahay 9%. daraasaddan ayaa u aaneynaysa arrinkani sharci ka jira gobolkani Maine ee loo yaqaano sharciga deegaanka Indida sababtoo ah ayaa la leeyahay wuxuu sharcigani ka hortaagan yahay qabiiladani ka faa'iideysashada ama ka faa'iideysiga sharciga federaalka kaasoo saameynaya ilaa 570 qabaa'ilo oo kala duwan oo dalka gudihiisa ku nool haddaan u gudbo qodobka kale isbuucii hore xubno ka tirsan bulshada soo galootiga ahi ee ayagu jooga Portland ayaa ka qayb galay koorso ku saabsan kululeynta iyo sidoo kale walxaha kululeeya guryaha gelintooda haddaba koorsadani ayaa qayb ka ahayd barnaamijka horumarinta shaqo oo ay wadaan weliba qolada mashruuca guryaha loo yaqaano Project Home kuwaasoo weliba ka caawiya dadka soo galootiga ay helida guryo ay ayagu ku noolaadaan oo ku yaalo gobolkani Maine haddaba koorsadani ayaa weliba looga hadlay teknolojiyada loo isticmaalo kululeynta iyo qaboojinta guryaha Maine waxaana qayb ka mid ah qarashka bixiya dawladda gobolkaasi ayaa la leeyahay mawduucani dadka loogu baraarujiyo ama loogu soo jeediyo Victoria Morales oo ayadoo ah madaxa loo yaqaano Project Home ayaa sheegtay inay rajaynayaan in tababaro noocan ay bixiyaan dhawaan ayna weliba ku jiri doonaan ay leedahay dadka ayagu wada gawaarida waaweyn ee xamuulka ahi waa inaga intaas warkii anigoo cabdi iftinaya barnaamijkan idinla sii socodsiinayay mar kale ramadaanu kariim tan iyo intaan isbuuc dambe ku kulmi doono barnaamij midkani la mid ah waa anigoo idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
isku xirka wararka ee Maine Public waxay iskaashi la samaysay kooxaha ayagu kala duwan ee ku nool ama jooga gobolka Maine sida ay uga go'an tahay si fidida akhbaaraadka iyo sidoo kale warbiximaha dhammaan dadka ay qusayso. Waxaan si gaar ah ugu mahadcelinaynaa qolada Maine Immigrants Rights Coalition, Present Maine iyo sidoo kale bulshada ayagu ka kala yimid Congo iyo Angola, ama Jumbo Africa, Catholic Charities of Maine iyo sidoo kale Greater Portland Immigrant Welcome Center, Portland Adult Education iyo sidoo kale Portland City Office of Economic Opportunity, Prosperity Maine, waxaa sidoo kale jira Maine Health Access Foundation iyo sidoo kale The Maine Humanities Council sida taageerada leh iyo dadaalka dhiiriga ay sameeyeen. Isku xirka wararka Maine Public waxaa suurtagelisay taageerada shakhsiyaadka ganacsiga aas-aasaha dhammaan gobolkani Maine iyo sidoo kale gaar ahaan Coastal Enterprise, Seaport Credit Union iyo suuqa Hannaford Supermarkets. Sidoo kale IDEX, Co and Patricia Yowen, Maine Health Access Foundation, Maine State Housing Authority iyo sidoo kale Sam L. Cohen Foundation. Waa ku mahadsan tahay sida aad taageerada ugu muujiso barnaamijkan. Maine Public News Connect waxaa suurageliyey Co iyo Patricia Yowen, kuwaasoo ay ka go'an tahay inay isu xiraan dhaqamada bulshooyinka kala duwan. Juntos. Ensemble. Warajir. Junto. Seaport Credit Union. Together. Haddaanu nahay Maine Housing, waxaanu ognahay in furaha nolosha uu yahay guriga aad awoodi karto. Saas awgeed barnaamijkeena xagga deenta ee guriga waxa uu u hayaa dadka reer Maine barnaamij ay guryaha ku kiraysan karaan ama ku iibsan karaan ayagoo weliba bixinaya lacagta horumarska iyo sidoo kale lacagta dulsaarka ahi oo aad u yar. Si aad wax badan u ogaato, booqo mainehousing.org. Suuqa Hannaford wuxuu u dabaaldegayaa shaqaalahooda iyo macaamiishooda oo ah dad kala duwan iyo dhammaan bulshooyinka. Waxaa suuqa ka go'an inay abuuraan goob soo dhoweyn si wada jir ahna waa meel ka sii weyn suuq. Si aad wax badan u ogaato, booqo hannaford.com. Haddaad jeclaan lahayd inaad barnaamijkan ama mashruucani sii taageerto, fadlan la xiriir Corey Morrissey adigoo garaacaya 207 232 4241.